Bernardo Silva waa mid ka mid ah xiddigaha ugu saameynta badan ee abid xirta maaliyadda kooxda Manchester City, isagoo lagu naanayso sixroolaha reer Portugal. Waa ciyaaryahan isku dhex daray farsamada mashiinnimada iyo hufnaanta khadka dhexe, taas oo ka dhigtay mid aan laga bedelin safka hore ee Pep Guardiola. Awooddiisa dhanka maamulka ciyaarta iyo go'aaminta natiijooyinka kulamada adag ayaa ka dhigay mid ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan ee horseeday xilligii dahabiga ahaa ee City ay ku hanatay dhammaan koobabka suurtagalka ah, isagoo ku muteystay jacaylka taageerayaasha iyo ixtiraamka dunida kubadda cagta. Haddaba daawade, nala sii joog ilaa dhammaadka muuqaalkan. Waan hubaa waxaad ku arki doontaa qodobo kaa yaabiya, hase yeeshee is-xasuusin. Haddii aad horey noola joogtay, like saar muuqaalkan. Sidoo kale, haddii aad nagu cusub tahay, subscribe noo saar oo furo gambaleelka si aad u hesho muuqaalada aan soo dhigno. Mahadsanid. Aan usii gudagalno muuqaalkeena. Qodobkeena koowaad, imaanshihiisii kooxda. Bernardo Silva wuxuu Manchester City kaga soo biiray kooxda Monaco bishii May 2017, isagoo ku yimid qiimo dhan 43.5 milyan oo pound. Waxa uu ahaa saxiixii ugu horeeyay ee xagaagaas kadib markii uu wacdaro ka dhigay Champions League, isagoo ka hor yimid City isla xilli ciyaareedkii ka horeeyay. Safashadiisii ugu horeysay. Waxa uu kulankiisii ugu horeeyay u saftay kooxda ciyaar ka tirsanayd Premier League oo ay City 2-0 kaga badisay kooxda Brighton bishii Agoosto 2017. Goolkiisii ugu horeeyay ee kooxda wuxuu dhaliyay kulan ay 7-2 ku xaaqeen kooxda Stoke City bishii Oktoobar 2017. Mashiinka kooxda. Bernardo waxa uu caan ku noqday inuu yahay ciyaaryahanka ugu orodka badan garoonka. Waxa uu dhowr jeer jabiyay rikoorka orodka ee Premier League hal kulan dhexdiis, isagoo mar orday in ka badan 13.7 kiiloomitir kulan ay la lahaayeen Liverpool. Wadarta goolasha iyo caawinta. Tan iyo markii uu yimid, Bernardo wuxuu City u saftay in ka badan 350 kulan. Waxa uu u dhaliyay in ka badan 65 gool, isagoo sameeyay in ka badan 65 caawin dhammaan tartamada oo dhan. Inkastoo uusan ahayn gool-dhaliye dabiici ah, haddana goolashiisu waxay mar walba ahaayeen kuwo go'aan ka gaara kulamada waaweyn. Koobabkii Premier League. Waxa uu qayb muhiim ah ka ahaa kooxdii dhigtay rikoorka 100 dhibcood sanadkii 2017 2018 ilaa hadda. Bernardo waxa uu City la qaaday 6 koob oo Premier League ah, isagoo ku guuleystay 4 xilli ciyaareed oo isku xiga 2021 ilaa 2024. Xilli ciyaareedkii dahabiga ahaa 2018-2019. Kan wuxuu ahaa xilli ciyaareedkii uu dunida istusay markii uu dhaawacmay Kevin De Bruyne. Bernardo ayaa kooxda garab qabtay, waxaana loo doortay xilli ciyaareedkaas ciyaaryahanka sanadka ee Manchester City, Player of the Season iyo xubinimada kooxda sanadka ee PFA. Guushii taariikhiga ahayd ee Champions League 2023. Bernardo wuxuu ahaa geesigii City ka caawiyay inay markii ugu horeysay ku guuleysato Champions League. Labadii gool ee uu ka dhaliyay Real Madrid semifinalka ayaa loo arkaa mid ka mid ah bandhigyadiisii ugu fiicnaa abid. Saddexleydii koob. Sanadkii 2023, Bernardo wuxuu safka hore kaga jiray kooxdii City ee qaaday triple-ka Premier League, FA Cup iyo Champions League, isagoo noqday laf-dhabarta khadka dhexe iyo garabka midig. Koobabka kale ee gudaha. Bernardo waxa uu City la urursaday koobabka gudaha Ingiriiska, 2 FA Cup, 4 Carabao Cup iyo 2 Community Shield. Kala duwanaanshaha boosaska. Mid ka mid ah sababaha Pep Guardiola uu u jecel yahay Bernardo waa inuu ka ciyaari karo khadka dhexe ee dambe, garabka midig iyo xitaa false nine ama weerarka hore. Waa ciyaaryahan tactical ahaan aad u sareeya. 11 rikoorka koobabka kooxaha adduunka iyo Super Cup. Sanadkii 2023 waxa uu City la qaaday UEFA Super Cup iyo FIFA Club World Cup, isagoo gool dhaliyay semifinalka tartanka dambe, taas oo ka dhigtay City kooxdii ugu horeysay ee Ingiriis ah oo 5 koob hal sano ku guuleysata. 12 xiriirka Pep Guardiola.
Pep Guardiola ayaa mar yiri Bernardo waa mid ka mid ah ciyaartooyda ugu fiican ee abid soo arko noloshayda. Waxa uu noqday mid ka mid ah ciyaartooyda ugu kalsoonida badan ee macalinka, isagoo had iyo jeer ku soo bilaaba kulamada ugu adag. 13 khabiirka kulamada waaweyn. Waxa uu leeyahay awood gaar ah oo uu goolal kaga dhaliyo kooxaha waaweyn. Waxa uu goolal badan ka dhaliyay kooxaha sida Real Madrid, Arsenal, Liverpool iyo Manchester United, taas oo ka dhigtay mid ay taageerayaashu aad u jecel yihiin. 14 rikoorka guulaha xiriirka ah. Waxa uu qayb ka ahaa rikoorkii City ee 21 guulood ee isku xigay tartamada oo dhan xilli ciyaareedkii 2020-2021, isagoo door weyn ka qaatay xasilinta khadka dhexe xilligaas. 15 mustaqbalka iyo heshiiska. Inkasta oo sanad walba lala xiriiriyo kooxaha kale, Bernardo waxa uu heshiis cusub u saxiixay City kaas oo ku eg June 2026. Waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah saxiixyadii ugu guulaha badnaa ee taariikhda kooxda, isagoo ka mid noqday hogaamiyayaasha qolka labiska. Haddaba saaxiibayaal, waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii. Bernardo Silva waxa uu Manchester City ku dhex qortay taariikh dahabi ah, isagoo ka mid noqday halyeeyada kooxda ee aan marnaba la ilaabi doonin. Guulihii uu gaaray, koobabkii tirada badnaa ee uu qaaday, iyo dadaaladii hagar la'aanta ahaa ee uu garoonka ku soo bandhigay ayaa ka dhigay mid ka mid ah xidigaha ugu fiican ee soo mara horyaalka Ingiriiska. Waa xidig sumadiisu ay ku dhex jiri doonto guul kasta oo ay City gaarto sanadaha soo socda. Haddaba saaxiibayaal, waxaa intii noogu eg muuqaalkeena. Intaan ku kulmi doono muuqaalkan la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.